كورن هدي أن كله واحد دجال أد وأدق ونحمري دولة إنجليز كيقول بدلك أرجنتينا دجال كاس أود سنة دبر كإهاد كن سجال بقول سديتن إلى بدي دجال كان وحلقت لماما دجال كو أدق كدب دجال كلواد الدولة يعني دجال كلواد الدولة وأجنها بحد قصارها لأولي كدب دجال كان أياد وحلقت لماما دجال كو أدق أياد كدب دجال كلواد الدولة لو ده ضل وحي اسكو هايين يرمها اسكو قبسين أيان مقالكم كله جدا جدونا بس صاحبي أنت المقالك بلاوين وحيد كعسنة إن المقالك يلا جرسان بيت كان أسوف لو جرسان أدي وما سنتين وغرال سي أدو فانتid labadan dal waxay isku hayaan waxa jiro jasiirada aad u yar oo loo yaqaan Falk Island jasiiradahan hadii aad qarinada aad fiirisid juqraafi ahaan waxay aad ugu dhow yihiin dalka Argentina iyo waliba qaarada barafka u jiifay ee loo yaqaan Antarctica jasiiradahan juqraafi ahaan labadaas dhinac ay aad ugu dhow yihiin dawladda Argentina muddo aad u fog ayay waxay sheeganaysaa lahaanshiyaha jasiiradan oo waxay isku dayeysay in qaad diblomaasiyad ay ku soo ceshato jasiiradahan walow dawladda Ingiriiska ay ayadu ahayd wadanka maamula jasiiradahan oo si toos ah ay wax u istaagayeen xukunkeeda kadib dagaalka labaad ee dunida Argentina wali waxay isku dayeysay in qaad diblomaasiyad ay ku soo ceshato jasiiradahan balse way ku guuldareysatay kadib Argentina waxay go'aansatay in jasiiradahan si xoog ah ay ku soo celiso ama tallaabo military ay ku soo celiso jasiiradahan suuxyada kamid ah ay Argentina ay ciidamada isku soo dibrooditay ayadoo aan wax filasho ah laga qabin in Argentina qaab military ay u soo weerar doonto jasiiradahan kadib Argentina jasiiradan duulaan ka dhanahay ay ku soo qaaday ciidamada Britain ee meesha joogay ay ka saartay muddo aad u yar maadaama ay ka baaxad weeyeen ciidamada Argentina ee soo weeraray jasiiradan muddo kadibna ciidamadii Britain meesha waa laga saaray oo Argentina ayaa maamulka jasiiradan la wareegtay Britain ayaa warkan ku war heshay kadibna Britain waxay kamid ahayd dalalka ugu sareeya xagga ciidamada badda iyo waliba guud ahaan ciidamada militariga Britain waxay ku jirtay dalalka ugu awood badan xilligaas يعني waxay soo dirtay ciidamada badda waliba maraakiib dagaal aad u fara badan ay soo dirtay kadibna waxa isfara saaray ciidamadii Argentinians-ka ah ee joogay jasiiradan waliba ciidamadii Britishka dagaal qaraar oo aad u fara badan ama saameyn fara badan yeeshtay ayaa meesha ka dhacay oo dagaalkan wuxuu socday muddo 74 bari ah ayuu socday dagaalkan taasoo sababtay in Argentina looga adkaado in jasiiradan looga wareego yani Britain ay ku guuleysatay dagaalkan kadibna Argentina jasiiradii waa laga wareegay ilaa ay hadda jasiiradahan waxay hoos tagaan boqortooyada Ingiriiska yani UK ayaa si toos ah u maamushay jasiiradahan loo yaqaan Falk Island adeehan sidee kula tahay jasiiradahan Argentina may ku saxan tahay in jasiiradahan ay soo ceshato mis waxa isleedahay waxa ku saxan boqortooyada Ingiriiska oo jasiiradahan ayaga ayaa iska leh lahaanshaha maadaama boqortooyada Ingiriiska la sheegay in hal qarni iyo ka badan ay maamulayeen jasiiradahan aragtida qaybta commentiga lagu wadaag muuqaalkan la gareey beedkana soo follow gareeya si aad u heshaan xogo xiiso badan oo dunida ku saabsan aad iyo aad ay u mahadsantihiin